hooyadu waa shidaalka ugu wanaagsan ee qof caadiya ka dhiga inuu samayn karo waxaan suurtagal ahayn. hooyadu waa qofka kaalinta cid kasta buuxin karta, balse aanay jirin cid kaalinteeda buuxin karta. xaqa ugu wanaagsan ee haweeney hesho waa inay hooyo noqoto. hooyadu ma aha ruux lagu tiirsado ee waa ruux tiirsanaantaba meesha ka saarta, kana dhigta mid aan daruuri ahayn. hooyooyinku waa kuwa iska kan jeclaada bilaa sabab. waxaan garwaaqsaday marka aad eegto hooyada waxa aad arkaysaa jacaylkii ugu saafisanaa ee weligeed la abaado. dunida ma jirto fan la mid ah heesta hooyadu ubadkeeda u heesto. wax kastoo aan ahay ama aan rajaynaya inaan noqdo waxaa iska leh hooyaday. hooyaday waxa ay ahayd haweenaydii ugu quruxda badnayd ee aan abid arko. wax walba waan ahay ayada ayaa iga dhigtay. waxaan u nisbaynayaa guusha noloshayda oo dhan, caqligayga, anshaxa guud iyo aqoonta muuqata inaan iyada ka keenay. hooyo waxaad tahay barbilowga noloshayda iyo bardhamaadka guushayda. waxaad tahay taajii saaran madaxa.